kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta ayna daawanaysa ay ku soo dhawaada barnaamijka Howraarsan oo si toos ah idinkaga imaanaya RTN studio dhexe ee magaalada Nairobi. waxaa si wada jira halkan idin socodsiin doona Cabdi Axmed Cabdilaahi iyo sidoo kale anigu Cabdilcasiis Barrow. qodobada saaka aad barnaamijka ku daawan doontaan waxaa kamid ah waxyaabaha ugu waaweyn oo ay qorayaan wargeysyada wadanka Kenya ayaa waxaa kamid ah dawladda Kenya ayaa la leeyahay si dhaqaalaheeda ay u bixiso waa in muddo kooban oo kaliya ay qaataa 500 oo bilyan oo canshuur ah taas oo muujinaysa xaddiga dhaqaale ee xoogan oo ay u baahan tahay dalkan. qodobada kale oo wargeysadana waxaa kamid ah Barrow horta qodobka The Standard uu soo qaatay ayaa waxaa muddo qodob aad iyo aad hadalkiisa loo hayay saddexdan maalmood aan soo dhaafnay dhinaca baraha bulshada waxa ku sawiran Al Maktoum oo ah boqorka Khaliijka ama Imaaraadka Niraahde marka cinwaanka ayay wuxuu qorayaa in madaxweynaha dalkani Uhuru Kenyatta iyo madaxa mucaaradka waa tahay cabdi aad mahadsan tahay sheekadaas ayaa wargeyskaasi qoraya barnaamijka ayaad saaxiibayaal ku daawan doontaan sidoo kale isla barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wararka ku saabsan Soomaaliya geeska bari ee qaaradda Afrika iyo waliba qodobka ugu weyn caalamka oo saaka dunida indhaha si weyn loogu hayo kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku goodiyay in Iran haddii ay doonayso in Mareykanka ay la dagaalanto ay noqon lahayd markii ugu dambeysay tani waxay ka hor imaanaysaa hadal uu maalmo ka horjeediyay ay ahayd in dawladda Mareykanka aanay marnaba naawilin inay la dagaalanto wadankaasi Iran. xaaladda ayaa iminka meel xasaasiya maraysa. la taliyaha Trump John Bolton xaaladda dagaal ayuu mar kale u muuqanaysaa buu yiri in Iran xaaladeeda lagu soo afmeeri doono. dawladda Ciraaq shaqaalihii wadanka Mareykanka joogay qaar kamid ah qunsuliyadaha iyo waliba safaaradda wadankaasi uu Mareykanku ku leeyahay ayaa laga daadgureeyay ee muhiimka ahayn. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan barnaamijka idinkugu haynaa iyo guud ahaanba wararkii ugu dambeeyay geeska bari ee qaaradda Afrika. barnaamijka Maslax Abubakar ayaa soo saaray isaga ayaa farsameynaya Cabdi Axmed iyo Barrow ayaa idila socodsiin doona u diyaar garooba saaxiibaya. tahay qiyaarta ayna daawanaysaa meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay aragti wanaagsan mar kale waxaanu si guud barnaamijka ugu falanqeyn doonaa wararkaasi iyo akhbaraadka kale ee ku soo kordha caalamka laakiin waxaan markaan guda galayaa wadanka Mareykanka iyo xaaladda wadanka Iran oo iminka maraysa meel xasaasi ah iyadoo qaar kamid ah warbaahinta dunidu saaka ay qorayaan qoraal uu soo dhigay Twitter-ka uu leeyahay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump oo ku saabsanayd in Iran haddii ay doonayso in Mareykanku ay la dagaalanto ay noqon karayso buu yiri mid ah markii ugu dambeysay oo dawladda kacaanka ee wadankaasi ay sii jirto. hadalkan ayaa waxa uu noqonayaa mid ka hor imaanaya hadal uu madaxweyne Trump hore u jeediyay oo ahayd amaba ahaa in dawladda Mareykanka aanay marnaba naawilin inay dagaal la gasho xukuumadda Tehran iyadoo xaaladda iminka ay ka sii darayso labada dhinac isla markaana isfahmi waagu uu yahay mid iminka xarkaha ama si xoogaysanaya. dhinaca kale markii aad eegto John Bolton oo ah la taliyaha dhinaca ammaanka madaxweyne dalkaasi Mareykanka ee Trump ayaa isagu sheegay in xaaladda ammaanka ee dalka Mareykanku marnaba muhiim ay tahay in si xoogan loo sugo. laakiin hadalka Trump iyo cagjugleyntiisa ayaa imaanaya kadib markii kooxaha Xuutiyiinta ay gantaal ku dhufteen mid kamid ah dhuumaha shidaalka qaada ee wadanka boqortooyada Sacuudiga. arrintaasi waxay noqotay dawladda Sacuudiga in gantaalo xoogan iyo duqeymo ay uga jawaabto taasi oo lagu soo waramayo dad rayid inay la beegsatay gudaha magaalada caasimadda u ah wadanka Yemen ee Sanca. xaaladda labada dhinac ayaa iminka sii xoogaysanaysa tan iyo markii ka dambeysay
markii markabka xoogan ee diyaaradaha ay gantaalaha xambaara ee Mareykanka ee Abraham Lincoln loo diray gacanka Persia taasi oo dad fara badan ay isweydiinayeen laakiin dowladda Iran ayaa sheegtay inaanay gacmaha is saaran doonin oo ay markasta u taagan tahay inay ka shaqeyso sugidda ammaankeeda waxaa sidoo kale ay heegan buuxa gelisay ciidamadeeda loo yaqaano al-Haras Thawriya ama ciidamada ilaalada kacaanka taasi oo mar kale xaaladda sii adkaysay Iran hore waxay u sheegtay inay baabi'inayso heshiiskii dhinaca nuclear-ka oo ay la galeen dowladaha reer galbeedka Yurub iyo Mareykanka taasi oo la saxeexay sanadkii 2015 madaxweyne Xasan Ruuxaani iyo xukuumaddiisa iminka waxaa hor yaalla sugidda guud ahaan ammaanka waddankaasi Iran cabdi horta xbarro kale hadalka saad u dhigtay way laakiin haddii aad fiirisid Twitter-ka yani uu soo qoray Trump iyo hadalka uu xambaarsan yahay hadalka siduu u dhigay yani haddii Iran ay dagaal doonayso taas ayaa waxay noqon doontaa rasmi ahaan يعني markii ugu dambeysay oo Iran xitaa la arki doono ay jiri doonto Mareykankana weliga iyo Allaha ha u godinin waa sidoo hadalka u dhigay Trump aadiyad barro hadda waxaad moodaa maaragtay dadka siyaasadda indha-indheeyo sibatan siyaasadda maaragtay bariga dhexe ayaa waxay soo fariisteen in maaragtay loo barbar dhigo waxa loo yaqaano drums of war durbaanka dagaalka George Bush hadaladu ku hadli jiray intuu weli Saddam ku duulin ayaa waxay kamid ahayd Saddam wuxuu haystaa hubka dilaaga Maxamed al-Baradiic oo tilo diri jiray waa in uu mas'uuliyadda qaado dhinaca kale waxaad maqlaysaa maaragtay Saddam oo hadlay may eega dhaxdooda Mareykanka dhaxdooda waxaad maqlaysaa ku xigeenka Dick Cheney aha oo maaragtay marle waa in xukuumadda ka jirto Baghdad la bedelo Bolton shalay saasuu ku hadlay Pompeo wuxuu leeyahay waxaa la soo gaaray xilli Iran ee mas'uuliyad ka qaadan lahayd dhibka ay ka geysanayso marka waxaad moodaa hadaladaas ayaa waxaa loo aruurinaa oo loo soo barbar dhigaya Bush markuu durbaanka garaacayay hadal noocaas ayuu soo jeedinayay isaga National Security Advisor-giisa ku xigeenkiisa wasiirka arrimaha dibadda tiiba hadirtan ayaad moodaa hadana xukuumadda Trump inay soo wado marka hadalka ayaa wuxuu yahay saadaasha ayaa waxay tahay dagaal waa laga maarmaan sidoo ku bilaabmi doono ha ku bilaabme ama ha noqoto maaragtay xitaa hal saldhig ee Iran leedahay oo maaragtay gantaal lagu dhufto saagartama laakiin wax uma soo socda laakiin jawaabta maxay noqon doontaa laakiin abdi wargeyska dhinaca online-ka Al Jazeera adeegsato ee barteeda internet-ka waxay ku soo qortay gantaal loo malaynay Iran inay soo riday soonka cagaaran ee Baghdad oo ay safaaradaha aadka loo ilaaliyo xafiisyada dawladda ay ku yaalaan inay ku dhaceen gantaalkaasi uu ku dhacay laakiin lama soo warin in wax dhibaato uu geystay arrintan waxay noqonaysaa baa la leeyahay in xaaladdu ay sii adkayso waliba Iran leeyahay waxa laga yaabaa gacanka hadalka inay ku hormarto Persia marka loo yimaado gacankaasi oo ah mid muhiim u ah oo saliidda Iran ay ka baxda ay marto arrintan qudheeda Soomaaliya hadii markabka Abraham Lincoln oo meesha soo gaaro gantaalaha iyo diyaaradaha xambaaraya in dawladda Mareykanka ay qudheeda doonayso in cunaqabataynta Iran lagu hayo la sii adkeeyo taasoo macnaheedu yahay Iran inay u ekaato mid iyada istifaacayso oo gacanka hadalka ay ku hormarto may aad iyo adarta fiiri barro horta waxaad xasuusataa in hadartan dagaalkan uu noqon doono hadduu dagaal dhici doono ama xaaladan hadartan cakiran ayaa waxay isu keenaysaa quwada aad u waaweyn waxaad ogaatay Yuhuudana meesha way ku jiraan oo maaragtay ayaguna waxay ogeen haddii uu dagaal dhaco inay ka qabsoomi doonto dhinaca maaragtay Hezbollah gantaala la beegsan doonto Tel Aviv siday hadalka u dhigayeen dadka siyaasadda bariga dhexe indha-indheeyo waxaa weeye Mareykanka hadduu dagaal ku qaado Iran in ay Iran iyadana gantaala la dhici doonto wadan alaale wadan Carbeed ay joogaan saldhigyada Mareykanka waxa iman karta marka gantaal ayaa laga yaabaa meel in laga soo gamo oo ilama la soo cadeeyo gantaalkan yaa soo riday waxa laga yaabaa Iran in maaragtay lagu eedeeyo waxa ta maaragtay gantaalada marmar maaragtay ka dhici jiray wadankan Kiev
Ukraine Kiev waqti bay qaadanaysaa ilaa la ogaado gantaalkan yaa soo gamay marka xaalad noocaasna inay ka dhalato ismariwaaga hadirtan ka dhex taagan ruhani iyo wata laakiin gacankan bershay marka laga hadlayo hadda markabkan iyo ku soo foolay leeyahay u soo socda diyaaradaha iyo gantaalada xambaara Iran muhiimad intee leeg buu u leeyahay marka la eego gacankaasi oo waliba leeyahay waa marin istiraatiiji ma Iran muhiimad aad u weyn buu u leeyahay marinka Hormuz aad buu u leeyahay isla markaasna waxaad ogaataa haddana caalamka intiisa kale iyo maaragtay maraakibta waaweyn ha noqdaan kuwa shidaalka waxa weeye waa jid marka jidkaasna ayagana faa'iido u yahay caalamka intiisa kalena faa'iido u yahay laakiin markaad aragtid maaragtay Abraham Lincoln oo maaragtay gacanka u soo socdo waa dhoolatus military yani qofkan aman maaragtay aman argagixina soo garta ma hadalkan uu leeyahay Trump oo waxa laga yaabaa maaragtay ciribtaada dambe in la arkin aad waxa weeyaan waa wadan oo maaragtay jiro maxaa la isku haystaa inaysan Iran hubka nuclearka aysan helin soo garta ma marka heerkaas hadii ay gaadhay waxaad xasata maaragtay in quwadda militariga Iran inay tahay mid aan ciyaar loogu gelay wata laakiin Iran markale waxay leedahay waxaynu dib u kicin doonaa warshadahan nuclearka aanu ku sameey jirnay hubkii uraniumka marka arintaasi qudheeda marka loo yimaado quudaha loolamaya cabsi intee leeg bay ku qabanaysaa haddii Iran ay hubkaas nuclearka marka la sheegtay inay sameynayso anigu waxaan aaminsanahay barro hadirtan sirdoonka Mareykanka sirdoonka Ingiriisiga sirdoonka Yahuuda inay og yihiin Iran maanta heerkay joogto in uu yahay heer aan maaragtay aan laga soo celin karin inay nuclear waxa laga yaabaa waxyaabo badan anaka naga qarsoon ee ayaga og yihiin inay meesha ku jiraan taasi oo sabab u ah in la isu goodiyo dagaal baa meesha ka soo socda in la isu goodiyo wata laakiin xaaladda iminka maxaa loo malaynaya hadalkan Trump maalmo ka hor warbaahinta isagoo kula hadlaya aqalka cad waxa la weydiiyay su'aal arinta Iran iyo Mareykanka u dhaxaysa ma waxay noqonaysaa mid lagu xalinayo dagaal iyo gacan ka hadal wuxuu yiri ma u malaynaya taas haddana maanta si cad buu hadalka u soo dhigay horta inta badan hadaladan maaragtay Trump dadka siyaasadda Mareykanka aad in la indhayo ayaa waxay leeyihiin horta Trump hadalkiisa ka soo qaad ma laha waayo waxay ku tilmaamaan beenaale inuu yahay maanta waxa laga yaabaa inuu saan ku quraacdo berito uu yiraahdo may saas kuma quraacanin laakiin waxa laga yaabaa hadalka Trump horta waxa weeyaan waa foreign policy idil weeyaan yani siyaasad arrimo dibadeed oo jangoan ayay tahay koodhe marka waxa laga yaabaa xog uusan haysanin markii laga wareysanayo oo hadirtan xogtii intay soo ziyaaday oo la yiraahdo no nimankan hadii maaragtay aan hadirtan qaban weyno waxaa la heli doonaa quwad islaami ah oo nuclear haysato waxa laga yaabaa in maaragtay xog kale oo dheeriya inuu helay aad laakiin dunida hadii dagaal meeshaasi uu ka dhaco waxay uga dhigan tahay saameyn intee leegaysa ku yeelanaysaa gaar ahaan wadamada shiliida shameeya OPEC ee qaybta ka ah oo carabtu badan aniga kale waxaan aaminsanahay hadii ay dhacdo haduu dagaal uu dhaco barrow inkastoo ma jeclaysan lahayn inaan isku tilmaamo prophet of doom yani maaragtay nabi ama ka saadaalinayo dib inuu dhici doono laakiin waxaan u maleynayaa wuxuu noqon doonaa dagaalkii saddexaad adduunka waa tahay aqaartayna la socotaa wararkaasi iyo waxay ku soo kordhaa sheekooyinka dambe iyo waliba barnaamijyada dambe ee RTN ay baahin doonto ayaad ku daawan doontaan wali waxaad la socotaan barnaamijka wararka Horaarsan oo si toos ah aad uga daawanaysaan telefishinka RTN studio-ha dhaxayno ku leenahay magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya warar kale ayaa inoo soo socda laakiin aan dib idinkugu celiyo dhinaca iyo farsamada واتاي خيارتayna daawanaysa isku soo laabasho wanaagsan mar kale waxa daawanaysaan telefishinka RTN studio-ha dhexe
aynu ku leenahay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya oo dib ugu soo laabto qodobada kale ee barnaamijka saaka aynu ku eegayno wargeyska The Standard ayaa bogiis hore waxa uu ku soo qoray kulan madaxweynaha dalka Uhuru iyo Raila ay la yeesheen si qarsoodiya baa la yiri boqorka xukuma Dubai ee Sheikh Al Nahyan cabdi shakada wargeyska muxuu ku sheegay horta barru waxaad moodaa arrinta maaragtay markeedii hore in maaragtay ay aad waxay ka shidneed baraha bulshada hay oo si aan caadi ahayn looga shidneed على كل حال شكذا أيا وحي دقيسا أما حضلة أيا وحي كلا شيء إن ذهب أفر بدن وليه المختوم أيا لقى كان Democratic Republic of Congo مركا ذهب نين إمارات هي هي أيا كونغو الديمقراطية كينيا كسوقش سفيان هي شكرا هل كان مركي سوق الشيء وسيدا ما ركتي هذا الشيء جاين برها بالشدة هنقطة wargeysyada halkan markii dahabkii uu soo galay dahabkii ayaa lagu dhigay dahab aad u fara badan buu ahaa waa lagu dhigay dawladda Kenya ku dhigtay waa la qabtay hay markaas waxay noqotay maaragtay waan in la galo oo maaragtay dahabkeena sideen ku heli karnaa adiga waqti bay soo qaadatay marka nin uu abti u yahay Makhtoum ayaa ka soo tagay Carabta halkan uu yimid hay waxaa la sheegayaa Karen iyo dhulkaas uu ku degay meel xaafad maaragtay nawaaxiga Nairobi ku taalo adigu dad buu la kulmay hay dadka qaar marka waa sida marka xuraansi buu sameynaya xuraansi buu sameynaya hay marka dadka ayaa waxaa la sheegayaa in uu ku jiray nin loo ekeysiyay inuu yahay wasiir gartay adiga lacaga laga daadsaday beenkii hal yiraahdo wax iska bixadii wax la futaaminayo marka ilaa ma lacag 400 milyan ayaa la sheegay oo shilinka Kenya adiga ala kulli xaal wixii ay socotayba ninkii ayaa wuxuu u arkay maaragtay in la wareejinayo oo maaragtay meeshan ciyaar isu bedeshay arrinta hay marka baraha bulshada ayaa waxa lagu soo faafiyay oo maaragtay viral noqday cod loo malaynayo inuu yahay Moses Wetangula hay oo senator oo haddana maaragtay nin lawyer oo soo ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda dalkan aad oo magac dheer dalkani ku leh iyo ninka uu abtiga u yahay cod isagana loo maleeyo ninka uu abtiga u yahay Al-Makhtoum wariyahaye fiicantay ani ma fiicni wixii aan isku ogeen may adiga tartiib isdeji degdegin hay marka ninkaas ayaa wuxuu magacaabay wuxuu yiri xitaa Raila ayaa madaxweynaha ayaa wada kulmay marka arrinta waan soo dhamay adiga alaabta way karkarsan tahay miiskeen la saaro baa dhiman bas adiga ninkii wuxuu yiri may waa la igu ciyaaraya aniga adna lacag baad cuntay kuwaas kale lacag bay cuneen marka waxaad moodaa maaragtay arrintii inay noqoto mid siyaasad ahaan loogu bedelay dalkani hay waxay taa madaxweyne ku xigeenka dalkani William Ruto wuxuu yiri waa la ogaaday maaragtay in dalkan ay joogaan dad conmen waa dadka maaragtay been abuur wax ku helo marka dabcan hadalkaas wuxuu ku dhigay hadda sida loo qaatay Raila Odinga yani hadda markii horena waxay lahaayeen Canaan bayna geenayn Canaan waa maaragtay meel Bible Canaan bayna geenayn Canaanki ayaa fake noqday waa dhulkii cagaarada la saadaalay hay Canaanki ayaa fake noqday haddana waxa way dahab fake ay dadka ka gadaayeen marka waxaad moodaa maaragtay inay waji siyaasadeed aad u yeelatay laakiin abdi kulankan oo iman doona kulankan u soo socda waa u imaanaya laakiin waxaan rabaa inaan su'aal ka hormariyo dahabkan imaaraadka ka yimi may dahabkan Congo ka yimid ma imaaraadka laga leeyahay Congo ka yimid si fiican ee Kenya lagu dhax qabtay la leeyahay Al-Makhtoumna uu sheeganayo inuu isaga leeyahay isagu safar badan xagee ku socday safar badan xagee ku socday dahab ma horta fiiri inta badan waxaad moodaa laga yaabaa maaragtay halkan inay transit ahayd laakiin dadka maaragtay qalbiga saliimka ayaa waxa la isweydiinaya ninkan nin boqor idil weeyaan soo garta ma maxaa keenay in maaragtay si maaragtay koona ama si maaragtay suuq madow inuu dahab ku raadsado wuxuu awoodi karaa toos dawladda maaragtay Congo inuu la xiriiro oo yiraahdo okay dahab intaasaan rabaa
okay meeqa la iga rabaa haye maxaa kale transit xaguu soo mari doona mas'uuliyadda idinkaale Soomaha ilama uu dahabkayga ka soo galayo dalkayga okay taas sababta u dhicin cid og ma laha laakiin wala isweydiinaya su'aalaad wala isweydiinaya maxaa keenay maaragtay nin ganacsatay yar oo Kenya joogo oo maaragtay ansaas in boqortooyada xad dahab intaas la eg si fiican uu soo iibiyo adiga marka ala kulli xaal wargeyska The Standard ayaa subaxan wuxuu soo qoray laba farwa weyn xafarwa in maaragtay madaxweynaha dalkani adiya iyo saaxiibkiisa Raila Odinga hogaamiye mucaarad mar ay ka soo socdeen Shiinaha ayaa cabaar ku hakadeen Dubai hay marka waxay la kulmeen Al Maktoum adiga Al Maktoum markii ay la kulmeen ayaa waxa la soo hordhigay ama la maqashiyay codkii u dhaxeeyay nin iyo abtigi codkii u dhaxeeyay ninka uu abtiga u yahay oo loo malaynayo iyo nin loo malaynayo Moses Wetangula soo agartama marka wargeyska ayaa wuxuu dhigaa madaxweynaha arintii filan waabay ku noqotay taasi ayaa sababtay inuu amar degdeg bixiyo taasi ayaa keentay barro waxasata maalin dhoweed ba ahayd dahab fara badan ayaa kaleelasho laga soo qabtay dahab fake buu ahaa soo agartama dad badan ayaa la soo qabtay marka kale waxa weeyaan waxaad moodaa maaragtay wargeyska wuxuu hadalka u dhigayaa in maaragtay Al Maktoum uu ka codsaday dawladda Kenya in ay ka soo garbaxaan garta wala isugu imaan doonaaye maalinteeda siyaala doontaa wax lagu kala baxay si fiican Kenya bishiiba laba sheeka mar shidanta baraha bulshada waxaad moodaa si weyn in loogu hadalhayo si fiican marwaati cabdi oo bilaabantay soo xirxirinta mas'uuliyiinta la dagaalanka musuqmaasuqa waxa ku xigtay sheekadii iyana xiisaha leh oo leeyahay wabiga Nairobi bilicdiisa la hagaajinaya oo la weyneenaa tii lahayd guryo badan baa la baabiinaya dhowr sheeko inuu halkan ka sheegnay si fiican waxa ku xigtay madaxweynaha dalkan uu yiri waxaan ku waayi doonaa la dagaalanka musuqmaasuqa saaxiibay maanta sheekada dahab bay maraysaa si fiican marwaati sheekadii ugu weynaa ninkii odaga ahaa Nairobi hogaaminayay ninkii saaxiibkii ahaa oo asna Waititu is hayeen si fiican oo sheekooyinka maalinba meel laga shiday maalin waxa shidnaa ninkan dambi oogista qaabilsan Nuruddin Xaaji iyo saaxiibkiisa dambi baarista qaabilsan isna way dhahaya xabsi baynu u dari doonaa dad muhiim ah marwaati la dhahay Raila Odinga ayaa soo jeediyay hadal ah kaniisadaha in aanay ka qaadan lacagta dadka loo malaynayo inay soo dhacaan siyaasiyiinta wasaqaysan isagoo markaa leeyahay wuxuu ku dhaga hadlayay madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto maanta dahab bay maraysaa Kenya xagee u socotaa may horta barro that's a very good point aad u fiican weyn waxaad moodaa maaragtay Kenyaanka ayaa waxay u barteen had iyo goor ale waxaa lagu mashquuliyaa arrin un baa soo baxda soo agartama dadka qaar ayaa waxay calaamad su'aal ay saarayaan arrintan dahabka waxay leeyihiin may arrintan amay tahay mid laga weecinayo dadweynaha inay su'aalo fara badan weydiiyaan oo ku saabsan aawe la dagaalankii musuqmaasuqa aad noo sheegayseen aawe dadkii madaxda ahaa aad sheegayseen xabsiga loo taxaabi doona inkastoo xitaa madaxweyne Uhuru darhad meed mise shalay uu adkay wuxuu yiri may dagaalka musuqmaasuqa uu socdaa waana ku guuleysan doona lama taabtaankaasi waa sidii loo bilaabay laakiin waxaad moodaa marba maaragtay jawiga Kenya yani waa wax loo bartay yani wax lagu shaaheeyo oo laga sheekeeyo birbaynu shidaalka ka sheekeyn jirnay waxba lagu daray waxba laga dhimay inta waqti baarlamaanka isku qabteen marka waxaad moodaa any given time arrin baa jirta oo maaragtay lagu shaaheeyo oo maaragtay lagu mashquulo oo su'aalo la weydiiyo oo maaragtay cabaar sida loo joogo ayaa waxaad moodaa Coca-Cola waliga ma furtay Coca-Cola marka soo degaysa tukala soo baxaysa marka waxa la dhaladii Coca-Cola fartaba waa isku qaab u dhawaaqday bes chua bes beri kamaana waxa maqli doonta saasa jirta dheeman ayaa laga helay waxa laga yaabaa xitaa in lagu yiraahdo gaarisa dheeman laga qodaaya marka dheemankii ayaa la waayay meel uu ka baxay waa arrin maaragtay Kenyaanka aad lagu si weyn isku weydiinayaan haddii aan ku soo laabano wargeyska The Daily Nation cinwaanka The Daily Nation barrow ayaa wuxuu dhigaa in maaragtay Raila xisbiga ODM horta waa xisbi aad u weyn waana xisbiga mucaaradka dalkan xisbiga ugu weyn weeyaan oo xisbiyada ugu awoodda badan marka waxaad moodaa hadirtan tan iyo markii ay heshiiyeen Raila Odinga iyo madaxweynaha dalka ay isgacan saareen uu jawiga siyaasadeed degay
ayaa su'aalaha darta la isweydiinaya kale ninkii Raila Odinga ahaa oo ah gudoomiyaha xisbiga ODM hay oo hadartan maaragtay xisbiga Orange xil weyn baa maaragtay laga siiyay African Union oo isla markaas hadana maaragtay ninkii madaxweynaha ayaa maalin walba isla fadhiyaan oo marmar maaragtay dibadaha isu raacaan ninkan hamigiisa siyaasadeed ayatiinkiisa siyaasadeed xaguu ku eg yahay marka xubnaha sarsare xisbiga ODM uu ka mid yahay Ali Hassan Joho uu ka mid yahay Wycliffe Oparanya oo maaragtay governorga Kakamega waana gudoomiye ku xigeenayaal weeyaan oo xisbiga labadoodana hadda ka horba waxay ku dhawaaqeen inay u loltami doonaan xilka ugu sareeya dalka marka waxoogaa way yara xishoonayn hadartan sababtoo aabihii xisbiga lahaa ayaa madaxweynaha shax la cabay weli muusan sheegin in uu howlgabay inuu iska dhaafi doono inuu maaragtay isu sharaxi doono madaxweynenimada marka taas weeyaan ayaa waxoogaa waxaad moodaa xisbiga ODM inay jiq ku tahay dahba saaran caad baa ka koreeya la xisbiga si fiican laakiin xisbigan waxa xasuustaa xilligii doorashada inay keeneen liin ama orange oo kale calaamado eego dadka isfiiraan oo leeyahay waxa la aadayaa barwaaqo tii kanana ka shaqeynaysa waqti barwaaqa loo baxayay dhul cagaaran in Soomaaliya ka madaxweynaha Raila hadday is gacan qaadeen barwaaqada Raila sadaalinayeen xitaa jeenaha loo raadiyay sida dadka qariyaamaysan yihiin may way jirtaa taas laakiin su'aasha ayaa waxay tahay waxa weeyaan waxaad muddo maaragtay horta siyaasadda dalkan inay tahay mid ku salaysan doorasho markii laga soo baxo waa in doorashada kale laga sheekeeyo doorashadii kale cabaar baa weli maaragtay ayaa ka dhiman laakiin waxaad muddo maaragtay in xisbiyada kale aad moodid hadartan in maaragtay arrinta laga hadlayo inay tahay 2022 marka ODM maxay u aamusan tahay maxaa qaboogan gale muxuu yahay ayuu wargeyska waa sidoo hadalka u dhigayo marka yaa noqon doona qofka maaragtay calanka ODM u qaadi doono yaa noqon doona waa tahay warbaahinta iyadaaba sheeko kala bilaabaysa oo xisbi hurda ka celaysa wala oran kara barow waxaa jirta arrin maalin dhoweed Kenya ka dhacday xisaab nin baa baraha bulshada ayaa wuxuu ku soo qoray haddii suuq aad rabtid ookiyaalaha madow iyo waxyaalaha wejiga la iskaga daboolo iyo koofiyadaha waxaad geysaa maxkamadda Kilimani barow dadka meeshan ku sawiran ayaa waxa weeyaan u shaqeynayay KRA ama waaxda canshuuraha marka dhowr iyo 30 ayaa xabsiga la dhigay maxkamadda markii la keenayay meel ay ka keeneenna ma sheegi karo gowdhe nimankii aad moodaysid maaragtay in ookiyaalaasha loogu talagalay loo qaybiyay oo maaragtay hoods baa la dhahaa marka ciidanka booliskana kama celin karo sababta waa wax uu xor u leeyahay laakiin qaadiga ugu weyn dalka Maraga ayaa calaamad su'aal u saaray wuxuu yiri arrinka noocan mar dambe maxkamadaha kama dhici karo sababtoo ah waxa weeyaan qofkii wajiga uma muuqdo bimacna waxa weeyaan maxkamadda ayaa sawirka maxkamadda ee soo saaraysa ayaa waxay tahay in ay raali ka tahay qofkan dembiga geystay ama qofkan eedeymaha lagu haysto in xitaa maaragtay uu xorriyad u leeyahay inuu wejigiisa qarsado marka waxaa leeyahay dadka cidda la eedeynayo waa inay arkaan qaadiga xukunka qaadayna waa inuu qofka aqoon karaa wejigiisa waa arkaa marka Maraga taabuu ku doodaya laakiin saaxiibo meel alaabta laga keenay cabdi oo asxaabtii KRA ahayd oo shaqaloodinta bilaabay markii saaxiibadooda la xaray iyagoo ka ashtakoonaya raggan xiran iyo dumarkan wali ma sidii bay shaqadii KRA u moodayeen kale ilaa hadartan lama ogo laakiin waxaad moodaa maaragtay in damaanad lagu sii daayay qaar kamida oo weli maaragtay baaritaano ay ku socdaan laakiin waxa weeyaan wargeyska ayaa wuxuu ka fikiraya wuxuu angalku ka qaadanaya sheekada ka fiirinaya hal abuurka dadka iyo meel uu gaarsiisan yahay waayo inta badan waxaan arki jirnay anaka ama waxaan u baranay qofka maaragtay kamerada markii la soo inuu soo yiraahdo kaliya uu iska qariyo لكن إن هذا ما ركتي بهال أوكيال مدو سيد قف نوف بول جوجو أو ما ركتي حمت إسكا علينا عادي بقى
bal lii kara okiyaalaha wax aysan mararka qaar isha markay fiirinaysa la arkayo ayuu si dadban dadka u tusi karaa aad iyo aad weligaa okiyaala ma ku qashta imtixaan may adigana tahay weligaa markii imtixaan maada gashin weligaa imtixaan maada gashin aniga may aniga taaf baan ahaa iskoolka waxaa weeyaan imtixaanka shaha camalan waa cabisay weligaa waa qashin way imtixaanaadkaad in maanta dib lagu celiyo xillo warqadihii lagu soo hordhigay bal inaad taaf tahay markaas waxaa weeyaan meel cidlaan soo istaagi doonaa okay haddii aan fiirino sheekooyinkan kale waa u iman doonaa ha sheekooyinka kale ay waaweyn ayaa waxaa weeyaan in maaragtay wargeyska The Daily Nation ayaa wuxuu soo qorayaa in waaxda canshuuraha dalka ayaa waxaa laga rabaa yacni waa laazim in 500 oo bilyan ay canshuur ahaan u aruuriyaan muddo 2 bilood gudaheeda si ay u sahlnaato dawladda miisaaniyadeeda budgetkii baa soo socda wintay June waa in maaragtay waa in miisaaniyad sanadeedkii la shaaciyaa waa inuu shaaciyo oo imaan doona qodobkaas waa tahay qeyrteena daawanaysa qodobkaasi iyo kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamka kale ku saabsan ayaa inoo soo socday aan dib idin kuga celiyo farsamada يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا رمضان كفليس يا ربيو رحمتك نغسي يا ربيو سيدرنا داوغ يا رحمن كو رب العالمين كو رالينا غنقو يا ربي يا رحمن رمضان كفليس يا ربيو رحمتك نغسي يا ربيو سيدرنا داوغ يا رحمن كو رب العالمين كو رالينا غنقو يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا رمضان كفليس يا ربيو رزقنا واسع يا ربيو رب تصلنا وافجي يا رحمن كو رب العالمين كو رالينا غنقو يا ربي يا رحمن رمضان كفليس يا ربيو رزقنا واسع يا ربيو رب تصلنا وافجي يا رحمن كو رب العالمين كو رالينا غنقو يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا رمضان كفليس يا ربيو ربي يروحنا وسي يا ربيو رجح من كور يا رحمن كو رب العالمين كو رالينا غنقو يا ربي
يا رحمن رمضان كفليس يا ربي ربي الروحنا وسي يا ربي رجح من كور يا رحمن كو رب العالمين كو رالنا نقو يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي رالي شهادا ربنا رالي شهادا ربنا رالي شهادا ربنا يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي رالي شهادا ربنا رالي شهادا ربنا رالي شهادا ربنا رمضان كفليس يا ربي نغر بوارا يا ربي ريدنا نورمي يا رحمن كو رب العالمين كو رالنا نقو يا ربي يا رحمن رمضان كفليس يا ربي نغر بوارا يا ربي ريدنا نورمي يا رحمن كو رب العالمين كو رالنا نقو يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي رالي شهادا ربنا رالي شهادا ربنا رالي شهادا ربنا يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي رالي شهادا ربنا رالي شهادا waa tahay akhyaarteena daawanaysa ay rabbi raalliha sheehadaan rabnaa qadarkaasi dhaxtaalka ah ee magaxa banaadir iyo asxaabtii la jeebinaysay iyo dhaxtaalkii barnaamijka howraarsan ayuu ahaa meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay ramadaan wanaagsan eebbe sii wada jira cibaadada ha inooga aqbalo ramadaankana ha inoogu dhammeeyo barako iyo khayr intaba qodobada kale wargeysyada saaka ay qorayaan waxaa kamid ah countiyada wadankan Kenya ayaa qarka u saaran inay lumiyaan lacag malaayiin shilinka dalka ah taasi oo ay deen ahaan u qaateen golahooda wakiilada haddaba sheekadan ayaa waxay tahay sheeko kale oo cusub oo saaka wargeysyada wadankan ay wax ku qorayaan waliba wargeyska The Daily Nation ayaa si weyn arintan wax uga qoray cabdi markaan u imaano sheekadan ayadana barro waqti qofka maaragtay MCA-ga ama ka ah xubin golaha shacabka ee ismaamulada dalka ka jiro ayaa markii uu xilka la wareego ama uu doorashada ku guuleysto ayaa xaq ahaan wuxuu u leeyahay ama wuxuu ku leeyahay countiga in ay u fidiyaan deyn uu gaari ku gato uu baabuur ku gato deyn uu ku guri ku iibsado labo oo loo yaqaan mortgages marka lacag marka xildhibaanada dhexe ba taa la wadaagan Soomaa taas la wadaagan marka laakiin waxa weeyaan count and hada wargeyska ayaa maaragtay xafiiska hanti dhowraha guud Robert Ouko ayaa wuxuu leeyahay tan ayaa waxay furtay albaab oo shaki weyn looga qabo sidii lacagahan looga soo celin lahaa deymahan looga soo celin lahaa dadkii loo fidiyay sababtoo inta badan muutaay deen qofka markaad siinaysid systemka dawladda ha ahaado ama systemka bangiyada ha ahaado waxay qofka waa inaad ka haysatid wax deentaas u dhigmo ama ka badan bilmathala waa inaad maaragtay marka Cabdi Axmed aan deen ka qaadanayo tusaale banki joogo waa inaan leeyahay hantima guurta oo berri u dhigmaysa waxaas exactly marka problemka wuxuu yahay sharciga maaragtay kuma xiraayo maaragtay county governmentska in ay ka codsadaan ama in ay weydiistaan golaha shacabka maxaa la dhahaa haduu ka magaya lacagta lagu siinayay hay marka taasi ayaa sabab u ah in maaragtay hadirtan cabsi looga qabo in millions of shillings ay saas ku dhumaan haddii aad fiirisid countiga sidoo qore countiga Nyamira kaliya oo Kisii ku yaalo 4 milyan oo shilin ayay la yihiin sidii ay u soo celin lahaayeen sababtoo ah dadkii deymahaas la siiyay doorashadii la soo dhaafay ayay ku guuldareysteen wax shaqana ma hayo qofkii kumana qasbi kartid sababtoo hanti ma guuraha haddaad ka haysatid waxaa laga yaabaa xitaa haddii uu bixin waayo hantidaas inaad maaragtay aad iibisid xitaa gawaaridii la siiyay haddii la calfan lahaa waxaa la leeyahay waxba ma tarayaan de kule sharci aad u soo mari kartid ayuu
sharci aad ku soo qaadan kartid gaarigaas ayaan jirin ayaa jirin marka waxay noqonaysaa nin daandaansi wada haddaad lacagtaas sheegto si fiican barrow haddina aan ka gudubno tii canshuuraadka haati canshuuraadka markaan ka gudubno ayaa waxoogaa waxaad moodaa maaragtay wargeyska the daily nation ayaa maanta wuxuu soo sawiray ha meel oo fashionka lagu iibinayo wax alale waxaad rabtid inaad cabdiyow fashionkan oo hadda nagu cusub mugtaa Soomaaliya waxaa fashion lagu yiraahdaa fashion Soomaali waxaa lagu yiraahdaa wax markaas isha ay hayso oo maaragtay ha يعني باللبس ادو معنا ايباد كاسوتين يلا اما جرايد كان ايشنا way qabanaysaa Soomaa ha may okay may lebis ahaan markaan ha lebis ahaan wax markaas ma aragtay suuqa ku jiro waa naqshad la wada raadinayo markaan si fiican aad iyo aad hay marka naqshad hadda la raadinayo waxay tahay lebiska aad ma aragtay identity-gaaga aad ku qarin kartid markaad maxkamad joogtid qof ahaantaada qof ahaantaada si aan lagu garan waa tii aan mardho ka soo wada hadlayno marka Daily Nation baa waxa uu sameeyaba sawir cartoon laakiin qoraal buu ku lifaaqay hadii aan qoraalka ku dhiisay marka qoraalka wuxuu leeyahay kun shilin hadii aad rabtid aad inaad iska fogeysid dhaxanta ma aragtay xabsigana inaad iska xijaabtid marka waa kun shilin ka gabaadinaya عيب kugu timaada iyo dhaxan xabsi aad ku mudato fiican aad iyo aad wallahi meel baa loo socdaa Soomaa hay wararadu lacag 500 bilyan ay dawladda aruurinaysaa Soomaa waliba waaxda KRA Kenya Revenue Authority marka lacagtaasi waxa la leeyahay miisaaniyadii baa lagu kabayaa soo socota oo dhawaan la shaacinayo bal lacagtaas marka loo yimaado misladahay Kenyaanka waa laga aruurin karaa marka eegto sida wargeyska wax u qoran waa laga aruurin karaa haddana ma aragtay si aan caadi ahayn baa laga aruurin karaa laakiin su'aal ayaa waxay tahay haddii la soo aruuriyo hay lacagta nabad miyay noqon doontaa sababtoo ah haddii aad fiirisid marka lacagta inay bad qabayso lacagtaas inay bad qabayso sababta Kenya Revenue Authority waxaad moodaa hadartan fadeexad weyn ayaa ku timid shaqaalihii yaryaraa ayaa waxa ku baxday maaragtay in koox idil ama cartel waxa loo yaqaano oo lacaga lunsado oo lacaga aad u fara badan lunsado taasi ayaa sabab waxay ku noqotay maaragtay dawladda in ay dib ugu soo yarto ninkii commissioner haysan jiray maaragtay KRA oo inta badan waxaad moodaa mar alaale markuu KRA dib ka dhaco isaga baa loo arkaa inuu yahay qof maaragtay xalin karo way arag si weyn aad u xalin karaa laakiin mid baa hubaal ah Kenyaanka inta badan canshuurta way bixiyaan wax yar oo maaragtay hanti haysto oo canshuurta ka weecdo mooyaane laakiin waxaad ogaataa waliba sida la sheegaya laakiin waxaad ogaataa canshuurta ugu xoog badan dadka maaragtay danyarta ah ayaa laga soo aruuriyaa halkan 10 shilin halkan 5 shilin halkan laysinka dareewalka qofkan miyuu soo cusbahay canshuurta uu bixiyay barro mashaarki Malaysia canshuurta ma laga yani waxaad moodaa maaragtay marka lacag aad u fara badan weeyaan aadiya waa markii si fiican maaragtay loo maareeyo oo hantida loo dhowro tahay cabdi qodobkaasi ayaan jecelahay horta barnaamijkeena saakeena ugu dambeeyay si fiican laakiin intaan shaqada u soo soconay oo aan gaariga soo saarnay waliba saxmad xoogan wadooyinka ay ka jireen waxa jiray marad idaacad FM ka shaqeynaysa sheeka way jirtaa sheekooyinkii dunida ku ugu waaweynaana ay dhacayeen rejiimkii Saddam Hussein iyo Bushkii yara markay is haysteen dagaalka xoogan ee Baghdad ka dhacay محمد السعيد الصحاف وهو سيركي وفافنتا عراق horta waxaan jirta horta lebiskiisan ka heli jiray maxamed saciid as-saxaaf waayo waxaan xasuustaa Baghdad waagaas saxaafada caalamka hal hotel bay deganaayeen marka wuxuu soo iman jiray isagoo tuuta military qabo bastooladan halkaas ku xirnay beret buu xiran jiray beret waxa weeye koofiyadaha maartay kuwa maartay dubcaska camal ay xirtaan beret buu xiran jiray markaas intuu soo istaago ابو افكا انت لا كتريدي جري ayaa wuxuu dhihi jiray walle Mareykanka ma aragtay godkiisa biyo galay walbasaas foodka la cabi doonaan hay kaarahoodan ku dhax karkarin doonaa marka sheekooyinkaas marka ana kuwaas soo qaadan jiray markaas intaan af Soomaali ku qurxiyo wavamizi wa Kimarekani wakiona chamtemakuni Baghdad papa hal maalin waxaan ku soo toosay barrow sanamkii Saddam Hussein
waa sawirradii Saddam loo ekeysiyay sanamkii oo la soo jiidayo kowdhe hay kadib maxaa xigay markaas waxaan sii aawe Republican gaadkii la sheegayay ciidamadii inta ilaalada badan Maxamed Saciid asxaaf markii saxaafadda caalamka u wareeyay ay wuxuu dhihi jiray waxbaa noo haray waxbaa noo haray Republican gaadkeen horta waxay aad ugu dheereeyaan dagaalka dhudhuumashada yani gudaha magaalada Baghdad waa meeshii Mareykanka uu maaragtay waqtiisa uu ku beelaha waa meeshii Waterloo waa meeshii Napoleon Bonaparte ciidankiisa uu ku dhamaaday kowdhe adiga waan fiiriyay ninkii idaacadda u weynaa oday Salim Mohamed Ali jira wuxuu yiri cabdi waxaad samaysaa bal toddobaad fasax iska qaado oo orod iska tag dadka waxa uu sheegtay ma dadkii waxaan u sheego bala laakiin nin caadi been Maxamed Saciid laakiin markii la yiri Maxamed Saciid saxaf ayaa ciidamadii isku dhiibay sidee warkaas u dhigtay markii ma horta may toddobaad idil baan ka maqnaa waaban ka tanasulay war alaale war Ciraaq ku saabsan inaad sheegto kowdhe marka ma ogide ma laakiin adiga markii aad maqashay Maxamed Saciid baa isku dhiibay ciidamadii dalka soo weeraray Amerikaankiina dalkii uu qabsaday sida ma raq iyo ruux meelo jaali carabiga waxa laga lahaa soodinta Suuriya u sii socda iyo Dimashq dhulkaas oo gal rabaa iyo marba waxa lahaa aawe marka haddana muutay waxa aad aan ugu qiirooday waxay ahayd ninka tababara ciidamada Republican Guard nin Singu ahaa oo Indian buu ahaa wuxuu yiri waxaan meesha kaga soo tagay wax aan caadi ahayn way wax caadi ma aha kowde ka war suga Republican Guard waxay ku dhigi doonaan ciidamada isbahaystay jawaab bay bixin doonaan adaro jawaabtiisa loo sugay laakiin hadda Iran baa loo jooga loo sii socdaa laakiin dawladda Iran waxay leedahay ciidamada ilaalada kacaanka oo hadartan Mareykanka ku tilmaamo argagixisay inay yihiin looma babac dhici karo Mareykanka dab hulcaya ayay doonayaan in isku dhex tuuraan in adaro Maxamed Saciid saxaaf bay raadin lahayn marka waxa laga dhigi lahaa wasiirka warfaafinta ageertayna daawanaysa aad u baahsan yahay Cabdi Axmed Cabdulaahi oo dib u xasuusanaya sheekooyin uu horay u tabiyay xilli fog 2003 markii dagaalkii Saddam Hussein iyo Mareykanku uu dhacay magaalada Baghdad la burburiyay isla markaana boqolaal shacbihi maanta wali ay daryeel la'aan ku nool yihiin waxaanu rajaynaynaa nasiib darradaasi oo kale inaanay dhicin qiyaarta guud ahaanba barnaamijka ayaa intaas ku dhan aad baan u jecelahay inaan u mahad celiyo Maslaxa Abubakar Xaaji oo farsamayaqaanka barnaamijka iyo soo saarahaba ahaa iyo Paulo dhinaca kaamirooyinka ama muqduubayaasha hagaajinaya Cabdi Axmed Cabdulaahi iyo aniga Cabdi Casiis Barrowa ayaa halkan idinka socodsiinayeen guud ahaanba barnaamijka Horasan intii aynu isku arki doona saaxiibadayna daawanayo waxaan idin leenahay si daawada RTN isma dhaafno aragti